subaxnimadii ayaa lagala baxay guri uu ugu xirnaa ciddi qisaastiisa lahayd. waxaan caawa ka hadlaynaa aabbo sahal oo lagu dilay magaalada Burtinle lagu dilay. aabbo sahal wuxuu ahaa nin mutacalim ah oo muddo 30 sano iyo ka hor macallin ka ahaa meesha la yiraahdo Burtinle, macallin iskuulna ka ahaa oo dowladdii kacaanka ay wax soo bartay. xilligii dowladda kacaanku jirtay ayuuna noqday macallin iskuul ah oo meesha wax ka bara dadka oo aqoontiisa u gudbiyo iskuullada wax ka bara. waa 30 sano ka hor. aabba sahal waxaa ku dhacay markii burburkii dhacay, maadaama uu ka soo jeeday qabiilaha ama qabiilooyinka la haybsooco sida qabiilada la yidhahdo Madhibaan ee Soomaalidu inta badan ku xadgudubto ee ay nasab dhimanka u yaqaanaan maadaama qabiilada ka dhashay. waxaa u suurageli weyday markay dowladdii dhexe meesha ka baxday ee cadaadinaysay dadka khaa'imiinta ah iyo dadka dhibaatada u geysta dadka noocaas oo kale ah. wuxuu sameeyey aabbihii inuu shaqadii ka tago cunsurinimo daraaddeed iyo dhibaatooyin loo geystay daraaddeed iyo cunsuriyad lagu sameeyey, ama xagga ardayda ha kaga timaada ama ha kaga timaada xagga bulshada ama ha kaga timaada maamulkii kale ay wada shaqaynayaanba. midkay dooniba ha kaga timaadee aabbahaasi wuxuu sameeyey inuu shaqadii uga tago cunsuriyad lagu sameeyey awgeed iyo daraaddeed. waa wax aad looga xumaado. in badanna waxaa sababay dhaqankii Soomaalida ee xumaa markii laga tago. in badan waxaa sababay arrinta noocaasa. runtii xaqiiqatan arrintaa waxaa sababay inayna meeshii dowlad governmenti wanaagsan oo adag oo quality leh oo ka difaacda dadka noocaasa xaqoodana soo dhicisa inayna jirin oo meesha ka baxday. aabbahaasi marka wuxuu noqday dadkii dulmanayaasha ahaa ee sii wadan waayey. aabba sahal shaqadii uu u hayay ummadda iyo shacabka iyo deegaanka uu u hayay, kadibna markuu arkay inuuna meeshan ayna uga bannaanayn boos inuuna uga bannaanayn markuu arkay aabbo sahal wuxuu bilaabay xirfad kale oo aabbihii baray hadda ka hor markuu ardayga ahaa, inuu xirfadda oon manaasib u ahayn qof mutacalima inuu dib ugu laabto oo nolosha reerkiisa iyo ka dabaron midda naftiisaba uu ka dabaro. arrintaasina waxay ahayd inuu kabaha tolo. sida lagu yaqaana dadka nooca ama faamilka noocaasa waxay yaqaanaan tacliim fara badan. tacliimtooda waxaa ka mid a farsamada gacanta inay aad u yaqaanaan oy gacantoodiiyo xooggooda iyo muruqooda ay maalaan. tiibuu marka is yidhi alleelahay tanaan lagugu qabsanin, cunsurina lagugu samaynaynin, alleelahay tan ka faa'iidayso. aabbaha dowladdii Soomaaliya macallinka soo ahaaye mutacalimka ahaaye wax soo bartay dadka waxbaraya aqoonta dadkiisa u kordhinayay. 30 sano kadib ama 40 sano kadib wuxuu noqday inuu kaba tolo noqdo ama uu kaba ka shaqeeyo. kabihii uu ka shaqaynayay muddada dadku aad bay u yaqaaneen, wanaag fara badan ayayna ku yaqaaneen. waxyaabihii lagu xusuusta waxaa ka mid ah wuxuu ahaa nin aad u hadal macaan, nin wuxuu ahaa dadku ay aad u jecel yihiin, nin taariikh magaalada kule buu ahaa. wuxuu ahaa Burtinle magaalada la yidhaahdo raggii aas-aasay buu ka mid ahaa ee dadkii ugu horreeyey ee odayaasha u ahaa buu ka mid ahaa. ninkaasi waxyaabaha lagu ammaanay ay dadku aad ugu xusuustaan waxaa ka mid ahaa maalin maalmaha ka mida in la isweydiiyey magaalada Burtinle goormo ayay qaadatay degmanimadka oo dowladdii Soomaaliya ay u aqoonsatay inay degmo tahay oo maamulkeedu uu u madax bannaan yahay. wax sheega waa la waayey, keligii ayaa sheegay. taasina waxay ku tusaysaa tacliintiisa iyo mutacalinimadkiisa iyo inuu wax ku soo bartay oo deegaamada uu soo bartay. waxaa kale ku tusinaysaa magaalada inuu ahaa qof xuquuq weyn ku leh. wuxuu ahaabaa dadku sida ay sheegayaan nin oo muxsin ah oo dadka dhiban u gargaara ayuu ahaa. ninkii noocaas ahaa waxaa dhacday oon ammaantiisa halkan lagu soo koobi karin. waxaa ku dhacday wiil inuu maalin u yimaado la yidhahdo Bishaar Haybe. wuxuu yidhi iitol ama ii hagaaji ama iitol kabahan. kabihii markuu u geystay waxay ku heshiiyeen lacag $5 inuu siiyo, kabihiina uu u tolo. laakiin Bishaar Haybe ilaahay baa qadar ka waday meesha Bishaar Haybe wuu diiday. aflagaada iyo waxaa dhex martay dagaal baa dhex martay Bishaar Haybe iyo aabba sahal. halkaana meesha shaytaankii baa ku dhex jiray. waxay sheegayaan dadku aabbo sahal inuu markuu xanaaqay kabihiina $5 la siin waayey inuu kabihii googooyo.
oo meeshii uu ka tolay uu ka jarjaro sida ay dad badani sheegayaan. halkaa waxaa ka xanaaqay bishaar. odaygii dagaal buu ku soo qaaday. dagaalkii markuu ku soo qaadayna dee oday weyn buu ahaa oo 60 iyo dhowr sano jira, wiil yaroo dhallinyaro ah buu ahaa bishaarna. odaygan aabba sahal ana wuxuu ahaa nin weyn, dhulkaa la dhigtay. kadibna wuxuu iskaga fujiyey ilaa nin xanaaqay oo shaydaan u weheliya, waad garanaysaana, oo shaydaankiina dadka raba inuu isku fasahaadiye mindi ayuu geliyey. meelaha dadka qaar waxay leeyihiin calooshuu ka geliyey, dadna waxay leeyihiin dhuuntuu ka geliyey, dadna meelahaasay sheegayaan. adigu isla markiiba dhaawacii xumaa ee soo gaaray walaal bishaar haybe uu u geeriyooday. halkaa waxaa dhacday gacanta in lagu dhigo aabba sahal oo dembiilo noqday in gacanta lagu dhigo. halkaa magaaladii dadkii degganaa oo qabaa'ishii kala duwanayd ahaa, kuwii la hayb soocayay ma aha, waa qabaa'ishii kale een la hayb sooci jirin oo dhanba waxay isku raaceen inaan aabba la dilin, aabba sahal inaan la dilin, magtiisana ay wada bixiyaan oo qof waliba uu ka qayb qaato. li'anna ninkani xuquuq ayuu dadka ku leeyahay. ninkan markuu dilayena qasad mayna ka ahayna dhibaato uu u geystay walaal bishaar haybe ayaa dagaalka ka kaliftay oo ku keentay aan magtiisii bixinno bishaar haybe oonu siinno, aabbahanna aan sii dayno, li'anna taariikh weyn iyo ummadda wax weyn oo wanaagsan buu ugu sugan yahay. laakiin reerkii way diideen inay yeelaan arrinta noocaas ah. haddaba walaalayaal, waxaan idiin sheegayaa ood bilowgana ku soo qaadateen, haddana idin tusinayaa aabba sahal iyo shaqadiisii iyo xirfadiisii waan idin tusi. maxkamaddii markay ku xukuntay in la dilo oo loo qisaaso, reerkiina ay ku adkaysteen wiilkoodii inay u qisaastaan. shareecadeennu qofku hadduu shayga uu qofka ku dilay, hadduu shay wax dila yahay sida khaalibka ah, meesha uu ku dhuftayna ay tahay meel loo dhinto ay tahay, dhimashadiina ay sidaa ku dhacdo, qofkuna uu miyir qabo, markuu dhacay iyo khaladi markuu dhacay walaalkan bishaar lagu sameeyo aabba sahal ku sameeyey oonu jecelnahay oo qof waliba taariikhdiisii macaansaday, maadaama oo diinteennii lagu tadbiiqiyey. wax alla yaalo waxa kale ee tabriiraadka oo dhan waxba tari mayso. aabba sahal dadku ka dhintay dad qiimo badan ayaa tihiin. yaska la idinku hayo waa khalad. waxaad tihiin Soomaali, waxaad tihiin muslimiin. aabbihiin wuxuu ahaa qof Soomaali oo runtii anigu horey uma aqooni, laakiin markaa taariikhdiisa aqriyey qof aad u qiimo badan oo difaac intan ka badan ummadda Soomaaliyeed ka mudnaa. laakiin kitaabka alle iyo sunnada nebigan wax walba ka hormarinaynaa. ku sabra waa aabbihiin in loo qisaasay wiilkii gacanta ay ka gaadhay. ku sabra arrinta noocaas ah. sheekadana halka ha lagu dhammeeyo. qof walba oo dembiile ah oo dhib geystana haddii sidaa loo gelayo, waxaan dhibaatooyinkani ma ayna soo laalaabteen. marka walaalayaal, waxaan idin leeyahay reer aabba sahal uu ka dhintay, reerkuu ka dhintay, sabir iyo iimaan allah idinka siiyo. aabbihiinna diinteenni islaamka say amartay ayaa lagu fuliyey. bishaar reerkuu ka dhintayna waxaan leenahay idinkuna diintii islaamka qaabkay rabtay baad hesheen. alxamdulilah idinkuna dhaha halkaana ha ku dhammaado. wixii dhiilla ahayd iyo colaad ahayd halka ha ku dhammaato. intaas ayaan caawa jeclaystay inaan idinla wadaago. in badanna marka aan soo hadlayay waxaan idin tusinaya mar walba, walow codka aan ka jarayo, qaabkii uu aabbo sahal uu soo maray uu u shaqaysan jiray.